waxaan oo bilaabi doonaa muuqaalka qaybta labaad aan uga hadli doono tibxaalaha ama polynomialska. Waxaan muuqaalka qaybtiisa koowaad aan uga soo hadalnay waxa polynomial ama tibxaale uu yahay iyo sida loo go'aamiyo digriga ama jibaarka uu yeelanayo tibxaale ama polynomial. Waxaan kaloo ku soo hadalnay muuqaalka qaybtiisa koowaad sida loo go'aamiyo horgalaha hoggaanka u noqonayo tibxaalaha ama polynomialka. sidoo kale waxaan ku soo la fugurnay oo aan uga soo hadalnay muuqaalka qaybtiisa koowaad sida polynomialska ama tibxaalayaasha loogu qoro qaab standard form ah. qofkii muuqaalka qaybtiisa hore uu dhaafay wuxuu dib ugu heli karaa isla page-kan ama barta YouTube-ka aan ku leeyahay ee Somhero. muuqaalka qaybtiisa labaad ee aan uga hadli doono polynomialka waxaan asagana diiradda ku saari doonaa sida tibxaale loogu daro tibxaale kale sida tibxaale looga jaro tibxaale kale. waxaan kaloo diiradda ku saari doonaa sida tibxaale loogu dhufto tibxaale kale. sidoo kale isla muuqaalkan waxaan asna uga hadli doonaa sida tibxaalaha loo qiimeeyo ama loogu sameeyo value. haddaan noqdo qaybta koowaad aan muuqaalka labaad tibxaalaha aan uga hadli doono aan ku hormaro waxaan uga hadli doonaa sidee tibxaale loogu daraa tibxaale kale ama tibxaale looga jaraa tibxaale kale. adding and subtracting polynomials. si tibxaale loogu daro tibxaale kale ama tibxaale looga jaro tibxaale kale waxaan isku dareynaa horgalayaasha tibxaha isku midka ah ama isku jaadka ah. su'aashaan isweydiinayna marka waxay tahay waa kuwee tibxaha isku midka ah ama isku jaadka ah. tibxaha isku midka ah ama isku jaadka ah waa tibxaha leh doorsoomayaal ama variables isku mid ah sidaas si la mid ahna leh jibaaro ama exponents isku mid ah. tusaale tibxaha aan coefficientiyadooda ama horgalayaashooda aan isku dareyno ama aan kala jareyno waa inay yeeshaan xaraf isku mid oo inay yeeshaan same variable oo inay yeeshaan x x y y z z m m sidaas la mid ah waa inay yeeshaan exponent ama jibaar isku mid ah power 2 power 2 power 3 power 3 yes cubic cubic square square. tusaalaha koowaad ama example-ka koowaad waxaana la yiri add the following polynomials. tibxaalayaashan hal isku daray ayaa la yiri x cubic plus 5x square plus 2x minus 6 waxaad ku dareysaa 4x square minus 1. marka aan rabno tibxaalina tibxaala kale ku darno waxaan dabaqaynaa xeerkii hore aan soo sheegnay oo ahaa inaan isku darno horgalayaasha tibxaha isku jaadka ah ama isku nooc ah. sida laajigeed markaan x cubic plus 5x square plus 2x minus 6 waxaan ku dareynaa 4x square minus 1. waxaan ku hormaraa marka termka ugu horeeyo ee ku jira polynomial koowaad oo ah x cubic ma jira term ku jaad ah oo ku jira polynomialka kale waa may jawaabta. sida laajigeed x cubic sideeda ku soo qoraya plus aan leeyahay 5x square oo ku jirto polynomialka ama tibxaalaha koowaad waxaa jiro term ku jaad ah jiro oo ku jiro polynomialka kale oo ah 4x square. sida laajigeed 5x square waxaan ku darayaa 4x square plus 2x iyadu ma jiro wax ama term ku jaad ah oo lagu darayo ma jiro. sida laajigeed 2x sideeda lagu soo celinaa minus 6 waxaa jira term ku jaad ah oo ku jiro polynomialka kale waana minus 1. waxaan ka wadaa minus 6 iyo minus 1 labadaba waa constant variable u qarsoon waa x oo jibaarkiisa yahay 0. sida laajigeed they are like terms waa isku jaad maadaama isku jaad yihiin marka maxaa sameynaa marka iyagana waa isku dareynaa bracket gooni aan gelinayna minus 6 plus minus 1. marka addition ka sameyn x cubic sidoo ku soo laabana 5x square plus 4x square markii la isku daro 9x square noqon doonaan 2x plus sidoo ku soo laabanaya minus 6 plus minus 1
minus 1 ka calaamada uu wato minuska ah iyo balaaska calaamada minuska ee wadato number 1 uu wato ma bedeli karto sida la ajigid siiso ku soo laabana minus 6 minus 1 hadii laba number marka ay isku sumad ama isku calaamad ay noqdaan waxa la sameeyaa calaamadooda ama sumadooda ayaa la siiyaa iyada oo tiro ahaan la isku daraayo sida la ajigid 6 iyo 1 tiro ahaan markii la isku daro waxay noqonayaan 7 laakiin sumad ahaan waxay qaadan doontaa minus ay qaadan doontaa marka jawaabta ugu dambaysa marka waxay noqon doontaa x cubic plus 9x square plus 2x minus 7 tusaalaha labaad waxaan leeyahay subtract 4x square minus 1 from x cubic plus 5x square plus 2x minus 6 balnomialka ah x cubic plus 5x square plus 2x minus 6 ayaa waxaa la rabaa in laga jaro balnomialka ah 4x square minus 1 subtractionka iyo additionka way isku dhow yihiin laakiin waxay yara ku kala duwan yihiin calaamada subtractionka ee minuska ah waxay iyadu ay sameysaa change sign ay sameysaa ama calaamada ay waxay ka bedeshaa tibix walba oo ka tirsan balnomialka hadda waxaan soo qaadanaynaa theorem walba oo ka tirsan tibxaalaha koowaad anaga oo la qaadanayno theoremka ku jaadka ah ee ku jira tibxaalaha labaad anagoo ogsoon in tibxaalaha labaad theorem walba oo kamid ah calaamadiisa isbedel oo ku dhici doono waxaan ku hormarinaynaa marka x cubic iyadu ma jiro theorem ku jaada sideedaan kusoo qaadanaynaa x cubic plus ay noqon doontaa 5x square waxaa jira theorem ku jaada oo ku jiro tibxaalaha labaad waana 4x square marka 5x square waxaan ka jaraynaa iyadana 4x square plus 2x maxaa yeelay 2x iyadu wax laga jarayo ma lahan wax theorem ku jaada ma jiro minus 6 asna waxaan ku dareynaa 1 ka markiisa hore wuxuu ahaa minus isbedel dhanka calaamada ayaa ku dhacay wuxuu noqday plus markaan aan shaqadan aan sameeyno marka x cubic sidiisoo ku soo laabanaya 5x square hadii laga jaro 4x square waxa soo haraya x square plus 2x sideeda ku soo laabanaysa minus 6 hadii 1 lagu darana waxa soo baxayo minus 5 maxaa yeelay laba tir hadii kala calaamadu yihiin waxa la sameeyaa waa la kala jaraa tir ahaan laakiin waxa la qaataa calaamada midka weyn ama numberka weyn 6 1 waxa weyn 6 weyn sida la ajigid calaamada number 6 ee minuska ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay minus 5 waxaan galeynaa isku dhufashada tibxaalayaasha marka laba balnomialis la rabo in la isku dhufto waxa la isku dhufanaa tibix walba oo balnomialiskaas ay leeyihiin example-ka saddexaad waxaan la yiri multiply the following balnomialiskan ama tibxaalayaashan waxa la yiraahdaa la isku dhufto waxa lagu dhahaa 2x ku dhufo 3x square minus 1 b na waxa lagu dhahaa x plus 9 ku dhufo x minus 9 ka hor inta aan sameeyno isku dhufashada waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo isku dhufashada waxay saameynaysaa saddex meel oo kamid ah tibix walba oo balnomialka uu leeyahay tusaale waxay saameynaysaa sign ama calaamada ay saameynaysaa hadii plus lagu dhufto waxa soo bixi doono plus minus hadii minus lagu dhufto waxa soo bixi doono plus laakiin hadii plus iyo minus ay isku dhacaan mar walba waxa soo bixi doono minus waa inaan midaas xasuusnaataa sidoo kale waxay isku dhufashada saameynaysaa variable-ka ama darsoomaha hadii variables isku mid ah la isku dhufto variableskaas waxa laga qaadan doonaa hal xabo iyadoo oo la isku darayo jibaarada ama degree uu leeyahay ama ay leeyihiin variableskaas sidaas la mid ah waxay saameyn doontaa coefficientska ama horgalayaasha waa numberskana sida la isku dhufto waa naqaanaa xeerarkaas ayaan marsiin doonaa waayahay hadda waxaan sameeynaa marka 2x ayaan ku dhufanaynaa 3x square minus 1 ugu horeyn theoremka ah 2x ayaan waxaan ku dhufanaynaa theorem walba oo kamid ah balnomialka kale 2x mar waxaan ku dhufanaynaa 3x square marna waxaan ku dhufanaynaa minus 1 marka koowaad 2x hadaan ku dhufano 3x waxa soo bixi doona 2 iyo 3 labada coefficient hadii isku dhacaan waxay noqon doonaan 6 x haduu x square ku dhaco wuxuu noqon doonaa x cubic sidaas la mid ah 2x waxaan ku dhufan doonaa 1 oo waliba minus ah 2x plus oo wata 1 kan wuxuu wataa minus sida la ajigid 1 iyo plus iyo minus hadii isku dhacaan waxa soo bixi doona minus waxaan leenahay marka minus 2x hadii 1 lagu dhufto 2x soo laabo doono minus 2x waayahay waxaan galeynaa hadda halka example-ka qaybtiisa b
qaybta b example waxaan leeyahay x plus 9 ha loogu dhufto x minus 9 waxaan sameeynaa marka term walba oo kamid ah termka walba oo kamid ah tibxaalaha koowaad ayaa waxaan ku dhufanaynaa term walba oo kamid ah tibxaalaha labaad waxaan marka sameeynaa marka x ayaa mar waxaan ku dhufanaynaa x minus 9 marna plus 9 ayaa waxaan ku dhufanaynaa x minus 9 haddaan x ku dhufano x minus 9 waxay noqon doontaa x lagu dhufto x labada x coefficientooda waa 1 haddii lagu dhuftana sidiisu kusoo laabana 1 coefficientina lama qoro waxaan isku dhufanayna marka waxay noqon doonaa variables ku kaliya haddaan x ku dhufano waxay noqonaysaa marka x square sidoo kale x waxaan ku dhufan doonaa minus 9 waxay noqon doontaa marka minus 9x plus 9 asna waxaan ku dhufan doonaa x minus 9 marka hore waxaan ku dhufanayaa x 9 haddii lagu dhufto x wuxuu noqon doonaa plus 9x sidaas la mid haddii 9 lagu dhufto minus 9 wuxuu noqon doonaa minus 81 waxay plus minus haddii la isku dhufto waxaa mar walba xoog bidi doona ama soo bixi doono minus ayaa soo bixi doona sida muuqata marka waxaa jirta marka tibxo isku jaad ah ayaa jira meeshan 9x iyo minus 9x waa isku jaad sida la ajigidu way kala go'ayaan ama way isgoosanayaan oo waxay noqon doonaan 0 waxa meesha marka jawaabtu ugu dambeysay noqon doontaa x square minus 81 example-ka afraad ama tusaalaha afraad waxaan la yiri soo hela qiimaha x cubic plus 2x square minus x plus 1 marka x qiimaheeda aad ku bedelato 2 iyo marka x qiimaheeda aad ku bedelato minus 1 haddaan ku hormaro xalka example-ka ama tusaalaha qaybtiisa ee waxaan la yiri x cubic plus 2x square minus x plus 1 soo hela qiimaheeda anagoo og in x ay noola mid tahay 2 waxaan marka sameynaynaa boos walba oo x ah waxaan ku bedelinaynaa 2 substitution ayaan sameynaynaa waayahay x cubic booskeeda marka waxaan ku bedeli doonaa 2 cubic plus 2 markaas waxaan sameyn doonaa bracket maxay bracket waxaan ku kala xadeynaynaa coefficientiga iyo variable-ka ayaan ku kala xadeynaynaa marka variable-ka booskiisa oo x square booskeeda x booskeeda waxaan ku bedeli doonaa 2 square markaas waxaan dhigi doonaa minus bracket aan furi doonaa waxaan geli doonaa 2 oo kaliya ilaan x wax jibaara ma saarneen markaas waxaan dhigi doonaa plus 1 shaqada marka waxaan ka bilaabeynaa marka inaan marka ugu horeyso aan xalino jibaarada inaan xalino jibaarkiisa banaanba mar walba wuxuu tilmaamaa inta jeer tirada la isku dhufanayo 2 cubic micnaheedu waxaa marka 2 waxa la isku dhufan doonaa 3 jeer 2 times 2 times 2 waxay noqon doontaa marka 8 ayaan leeyahay plus 2 coefficientkiisa igu soo celi 2 square gare iyadana waxay noqon doontaa 4 minus 2 8 igu soo celi plus 1 hadda marka waxaan shaqada ku xigta ay noqon doontaa in bracketkii baabiyo oo aan bracketka numberka dibadda ka yaalo ama calaamada dibadda ka yaalo aan ku furo 8 wax number oo dibadda ka yaalo ma jiro sida la isiisu ku soo laabanaya 8 plus 2 iyo 4 way isku dhacayaan waxay noqon doontaa plus 8 2daas negative-ka ama minus-ka ayaa ku dhici doona waxay noqon doontaa minus 2 plus 1 sidiisu ku soo laaban doona marka 8 lagu daro oo 2 laga jaro hal lagu darana waxay noqon doontaa 15 ama 15 waayahay waxaan bilaabeynaa halka example-ka qaybtiisa b waxaan la leeyahay x cubic plus 2x square minus x plus 1 qiimaheeda ama value-geeda soo hela la yiri marka x ay la mid tahay minus 1 anagoo og in x minus 1 la mid tahay ayaa waxaan soo helaynaa value-ga ama qiimaha polynomial-kaas macnaheedu waxa marka waxaan ku bedelanaynaa x booskeeda minus 1 waxay noqonaysaa marka hadii booska x minus 1 aan ku bedelano bracket ayaan furaynaa minus 1 bracket kan xirinaa waa cubic garaynaa markaas waxaan leenahay plus 2 bracket aan furaynaa minus 1 waan square garaynaa minus ayaan dhahaynaa bracket aan furaynaa minus 1 ayaan gelinaynaa plus 1 waayahay hadda marka shaqada marka waxaan ka bilaabeynaa marka in exponentiga marka hore aan xalino anagoo og in jibaarka mar walba oo tilmaama inta jeer tirada la isku dhufanayo waayahay minus 1 haddaan 3 jeer isku dhufano dabcan haddii tira negative ah la saaro jibaar oo kisi haddii la saaro tirada minuska ah way ama calaamada minuska ah way soo laabataa marka 1 haddii 3 jeer aan isku dhufano 1 loo ahaanaya laakiin maxaa soo laabanaya calaamada minuskeeduna soo laabanaysa marka waxay noqonaysaa marka minus 1
plus 2 minus 1 haddii la square gareeyo minus kuu baxaya 1 oo plus oo noqon doona minus bracket minus 1 plus sidoo kusoo celinayna hadda marka shaqada xigtaan qabanayna waxa inaan bracketkii baabiino minus 1 wax dibadda ka yaala malaha sidiisa kusoo laabana minus 1 plus 2 iyo 1 haddii isku dhacaan waxay noqon doonaan plus 2 minus iyo minus 1 kaas haddii labada minus ay isku dhacaan wuxuu noqon doonaa plus 1 kale oo ah polynomialka 1kii uu watay hadda marka waxaan arkaynaa marka minus 1 iyo plus 1 ayaa meesha ku wada jiro way isgoosanayaan marka jawaabteena waxay noqonaysaa marka 2 plus 1 oo ah 3